قدر وحي كعروتي طلابة اي قاداي مانتا ايران يوكرين waxay ka qayb qaadan doontaa difaaca saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe taasina Mareykanku way ka sii careysiinaysaa warbaahinta Ruushkana way hadal hayaan Israel markii ugu horeysay waxay macluumaad ka bixisay diyaaradihii ka qayb galay duqeyntii maalintii ugu horeysay dagaalka ay ka fuliyeen gudaha Tehran qodobo kale ayaa raaci doona oo ay kamid yihiin saraakiisha ugu sareeya ilaalada kacaanka ee Iran oo gabi ahaanba Lubnaan ka baxaya sababtu maxay tahay soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan maanta markii ay Iran bartilmaameysanaysay qaar kamid ah dalalka qaliijka goobaha ay garaacday waxaa kamid ahaa dalka Bahrain sidaan ognahay waxaa ku sugan ciidan ka socda golaha iskaashiga qaliijka ciidamadaas oo Bahrain difaacayay tani markii qalalaasaha ay la kulantay maanta marka goobaha la bartilmaameysaday waxaa qayb ka ahaa goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda Qatar kuwaas oo qayb ka ah golaha iskaashiga qaliijka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Qatar marka arrintaas aad bay kaga carootay marka la eego bayaanka ay soo saartay waxaana lagu sheegay in ciidamadooda ay kamid ahaayeen kuwa jooga xarun la bartilmaameysaday oo dalka Bahrain ku taal sida daraadeedna waxay yiraahdeen waan cabaareen in arrintaasi aad baan uga xunnahay waxaana ka dalba